magaalada Barawe caasimadda maamulka Koonfur Galbeed maanta waxaa lagu weeraray madaafiic khasaare dhaliyay dhankeeda waxaa halkaasi ka socotay doorasho lagu dooranaya xildhibaanadii 11aad ee baarlamaanka dalka ee ugu horeeyaha kuwa deegaan doorashada labaad ee maamulada ku soo baxo faahfaahinada laga helay weerarada maanta madaafiicda ee loo adeegsaday ee lagu qaaday magaalada xebeedka ee Barawe caasimadda Koonfur Galbeed ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jiro laba qof ayaa la soo wariyay inay ku dhinteen halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen 7 madaafiic oo lagu garaacay gudaha magaalada waxaana howlka ay doorashada ka socotay ku dhacday 2 xabo oo kamid ah madaafiicda la soo gamay goob u dhow halka kuwa kalena daafaha magaalada xeebaha iyo gudaha ay ku kala dhaceen wararka intooda badan ayaa qaarkood ku waramayaan in hoobayaasha inta ugu badan ay ku hoobteen qaybo kamid ah magaalada gaar ahaan xaafadda Dayax oo ay ku taala madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya taas oo ay ka socotay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxa soo wajahday cabsi xooggan oo la xiriirta weerarkan madaafiicda maadaama ay ku dhaceen xaafadaha ay degan yihiin dadka shacabka taas oo sababaysa cabsida ay qabayaan shacabka maadaama doorashada ay maalmo ka sii socon doonto halkaasi ciidamo dheeraadana la geeyay kuwaas oo jahwareer cabsi ah si abuurayso sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa la geeyay magaalada Barawe si u sugaan amniga doorashada howlgalaha ayaa laga sameeyay gudaha magaalada madaafiicda kadib balse ma jirto cid loo soo qabtay iyo wax faahfaahin oo ay ka bixiyeen saraakiisha bixinaysa howlgalkaasi waxaana saraakiisha qaarkood ay sheegeen in weerarkaasi ay ka dambeeyeen al-shabaab oo ay ka soo tuureen madaafiicdaasi goobo ku xeeran ee banaanka magaalada xaaladda Barawe ayaa degan balse cabsi kale ayaa la qabaa doorashada oo ku gadaaman maadaama maanta hoobiyaal lagu garaacay doorashadii ugu horeysay magaaladaasi oo horeba amnigeeda cabsi badan looga muujinayay si kastaba ha ahaatee doorashada ayaa marar badan waxaa lagu digay inay carqaladeeyaan ururka al-shabaab isla markaana amniga sare loo qaado si aysan saameyn uga dhalan iyo waxyeelayn loo geysto goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan saraakiisha ciidamadana aysan ku milmin siyaasadda si looga fogjignaado weerarada noocaas oo kale oo ka imaan kara ururada nabadeedka dhinaca kale waxaa maanta lagu doortay magaalada Barawe ku dhawaad 7 xildhibaan oo ah xildhibaanadii ugu horeeyay ee deegaan doorashada labaad ka soo baxay ee golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad waxaa magaalada Barawe maanta ka soo baxay xildhibaanadii ugu horeeyay ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo lagu doortay magaaladaasi xildhibaanadan ku soo baxay doorashada maanta ka dhacda Barawe ayaa waxay kala yihiin kow Saalim Cali Birow oo ku guuleystay kursiga ay sumadiisa tahay 165 ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo horey ugu fadhiyay isagoo helay 70 cod halka musharaxii la tartamayay Aadan Cusmaan Xasan oo helay 15 cod lambarka labaad waxaa ku soo baxay Yuusuf Aadan Maxamed oo ku guuleystay kursiga ay sumadiisa tahay 161 ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya isagoo helay codad gaaraya 80 cod halka musharaxii la tartamayay Cabdullaahi Xuseen Faarax oo helay 7 cod Maryan Maxamed Cali ayaa ku soo baxday kursiga ay sumadiisa tahay 44 ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoona heshay codad gaaraya 73 cod halka musharaxii la tartamayay Faadimo Xasan Cumar ay heshay 10 cod oo kaliya lambarka afraad waxaa ku soo baxay Xuseen Cali Xaaji oo ku soo baxay kursiga ay tirsigiisu tahay 16 ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isagoo helay codad gaaraya 81 cod halka musharaxii la tartamayay Ismaaciil Xuseen Axmed oo helay 10 cod oo kaliya lambarka shanaad waxaa ku soo baxay Cabdullaahi Cumar Abshirow oo ku soo baxay kursiga ay sumadiisa tahay 152 ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isagoo helay 83 cod halka musharaxii la tartamayay Axmed Xasan Cageedi oo helay 16 cod lambarka lixaad Farxiye Maxamed Cabdi ayaa ku soo baxday kursiga ay sumadiisa tahay 153 ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxayna heshay codad gaaraya 88 cod halka musharaxadii la tartamaysay Anisa Maxamed Xasan ay heshay 12 cod lambarka toddobaad waxaa ugu dambeeya waxaa ku soo baxay Cabdullaahi Xuseen Cali oo ku guuleystay kursiga ay sumadiisa tahay 151 ka mid noqonaya baarlamaanka 11aad ee dalka isagoo helay 78 cod halka musharaxii la tartamayay lagu magacaabo Mahad Cali Axmed oo helay 17 cod xildhibaanadii ugu horeeyay ee ku soo baxay deegaan doorashada labaad ee doorashada ka socota dalka ayay yihiin xildhibaanadani
waana maamulka ugu horeeyay ka dhabeeyay waxa Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoona lafta gareen uu horey u xusay in doorashada ay dedeji doonaan balse caqabada ugu weyn ay ku gadaamanaya in shakhsiyaad loo sii saadaalinayo oo filla Soomaaliya iyo ka socotay iyo dhanka lafta gareen lagu soo saaray kuraastaasi maanta lagu doortay magaalada Baraawe caasimadda Koonfur Galbeed iyadoona maalmaha soo aada dhankooda la qorsheynayo in doorashada xildhibaano kale ay ka dhacday magaaladaasi si ay Koonfur Galbeed u soo gabangabayso 26 kursi oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka oo 27 kamid ah maanta la doortay ayaa doorashadoodu taala magaalada Baraawe caasimadda Koonfur Galbeed ee magaalo xeebeedka Shabeellada Hoose ka tirsan inkastoo magaaladaasi maanta intay doorashada ka socota weerar lagu qaaday madaafiicaha al-shabaab ay ka dambeeyeen haddana waxa halkaasi ku sugan mas'uuliyiin ka kala socota ciidamada xoogga dalka dawladda Soomaaliya iyo Koonfur Galbeed amnigeeda ayaana aad loo adkeeyay sida aynu xogaha ku helayno inta ayaan ku soo gabagabeynaa daawadayaal warbixintan gaarka ah ee aad kala socoteen Somali Barays mid la mid ah qayaar inta kulmi doona nabadgelyo fadlan muuqaalka hadduu ku soo gaara sii share garay saaxiibadaada kale la sii wadaag page-keenana ku soo biro follow the saar muuqaalka haddii ka heshana like saar mahadsanidin